haweeneyda miisaankeeda 400 kiiloomitir waxay isku dayaysaa marwalba inay soo jiidato ragga ayaga wayba kula laboonayaan oo qaabkeeda ayay ka heleen ayadana waxay isku dayaysaa marwalba inay soo jiidato wax walba inay sameynaysaa si ayaga u soo jiidato tii hore loo lahaa dumarka sidee doonaan ba ahaadaan marwalba waxay jecelyihiin rag inay soo jiitaan sidoo kale ay daawadaan markaas kuwan dibdimiska waxay ku sheegaan biyo ayagan oo sheegaan inaysan ayada ka helin si ay isku bedesho xariifkan ay soo raacaysa halkan iyo Kenya kadibna ayada oo dib habeen ay luqo sameynaysaa sababtoo ah ayada ma bisdeeneen korkeedana waa wada sidoo kale meel walba jirkeeda ka midaan qaab ku yahay hadda aragto adiga ayaa banixi doona markaas ay waxay bilaabaan ayadoo inay ku sameeyaan dib habeen si ay u qurxaan jirkeeda sidoo kale kan wuxuu soo qaadanaa baashaan waliba isagoo raba inuu ka jiro cidiyaha sidoo kale miisaankeeda uu rabo inuu hoos u dhimo ala kulli xaal ayadoo inay qabtaan ay kala kicinaan face mask-kan iyo gelinaan kadibna waxay ka dhigaan ayadoo isku dhuu wax waliba inuu ku sameeyaan si ayadoo kaliya u kala kiciyaan xitaa waxay ka dhuuqayaan dheecaankii oo waxay ka daadinaan cadiinkii iyo dheecaankii ka buuxi jirkeeda sidoo kale shuluq ka dhigay si ay uga dhigaan qof caata ah qoftii aad qofkii shuluq ah waxay ka dhigaan kana soo saareen boqoradan quruxda badan kaasi aad uga mahadcelinaysa waliba ayagoo anaga ayaa ka helan xitaa kadibna halkaan ay imaanaysaa waliba ayagoo tartamaysa dhammaan dumarkani xariifkan ayaan ka helay kadibna wuxuu bilaabay gabadh uu soo dhawaanay